howlgalku waa duqayn xagga cirka ah bartilmaameedkana waa horjooga Cabdi Xiirey ujeedkana waa ka jawaabidda cabasho ka timid dadka ku nool bariga Hiiraan iyo in laga horleexiyo sharta horjoogahaas NISA oo kaashanaysa saaxiibada caalamka ayaa deegaanka Moqokori waxay ka fulisay howlgal duqayn dhanka cirka ah oo lagu soo abjaray nolosha horjooga Cabdi Xiirey oo ku jiray diiwaanka rag ay NISA aad u raadinaysay kaasoo khawaarijta u qaabilsanaa qabashada shaqooyin ay ka mid ahaayeen askaraynta carruurta marin habaabinta bulshada arrimaha sahanka ururinta lacagaha iyo xoolaha baadda ah laakiin isku qarinayay magacooday dhaqameed bulshada bariga Hiiraan ayaa saraakiisha hay'adda NISA la wadaagay in horjoogahaas oo dhibaato ba'an ku hayo bulshada muhiimna ay tahay in laga jawaabo cabashadooda intaas kadib waxaa la faray raadinta xogta horjoogaha iyo helitaanka cadeymo dheeraad ah waxay soo xaqiijiyeen sirdoonka qarsoon inay run tahay cabashada bulshada iyadoo lagu qabay cadeymaha la helay muuqaal ay baahiyeen khawaarijta oo ka dhex muuqday Xiirey oo dhex taagan geel uu baad kaga soo qaaday dadka deegaankaas taasoo soo dadajisay in si degdeg ah loo qaato go'aanka lana fuliyo howlgalkaas horjooga Cabdi Xiirey wuxuu ubadkiisa geystay dalka dibadiisa wuxuuna gobolka Hiiraan ka waday mashruuc uu carruurta ugu askarayo khawaarijta taasoo ay sii dheer tahay boobka hantida shacabka muhiimadda uu lahaa Cabdi Xiirey kooxaha khawaarijta waxaa laga garan karaa sida ay uga barorteen beegsigiisa markii laga qisaasay gaboodfalladii uu ku hayay bulshada waxayna sidaas ku waayeen garab muhiim u ahaa iyo horjooge kaga aadanaa qaybo adag beegsiga Cabdi Xiirey wuxuu fariin u dirayaa cid waliba oo ku foogan dhibaataynta bulshada xisaab culusna ay daba socoto horjoogayaasha hadda ku jira diiwaanka NISA ee bulshada dhibaataynaya